السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو برو تكنولوجي magacaygu waa Maxamed waxaan hayso saaraha fiidiyowga. casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay maanta qof kamida kanaalka dadka ku xiran ayaa wuxuu soo weydiiyay su'aal ah sidee ayaad ku xalin kartaa cilada ah all apps are stupid ama Google Play Store stupid. markaan doonayno cilada inaan xalino waxyaabo fara badan baa keena. marka hore in Play Store kaagu isticmaalo data fara badan. marka hore waxaad imanaysaa site-kaaga ayaad imanaysaa, dabadeeto waxaad imanaysaa applications markaad timaadid waxaad imanaysaa application manager. markaad timaadid waxaad ka raadinaysaa halkan Google Play Store ayaad ka dooranaysaa, storage ayaad oranaysaa, clear data ayaad delete oranaysaa, clear cache-tana waa oranaysaa haddaan iyana ku orsamin. dabadeed waad ka noqonaysaa markaa ka noqotid waxaad isku samaynaysaa intaan soo kicin power ka taabanaysaa mobilkaaga restart oranaysaa mobilkaaga. dabeed hadda inagu markaan restart garino waayo camera waxaan duubaynaa. markaa restart garisid ku soo kaco waad eegaysaa ciladina ka baxday. haddii aanay ka bixin waxaad samaynaysaa site-ka dib ugu soo noqonaysaa. waa step-ta labaad aan sameynayno. isla waad imanaysaa application-kii waad ka sii dooranaysaa, application manager ayaa oranaysaa. dabeed waxaad ka dooranaysaa markan aanu ku eegaynaa Google Play Surface kaasa dooranaysaa. dabeed waxaad ka dooranaysaa storage, manage storage ayaa ka dooranaysaa. manage storage markaan ka doorano xogaa culays yar baa jira wuu noo soo saarayaa. dabeed waxaad oranaysaa clear all data. wuxuu isticmaalay 163 megabyte. samayno saa u clear garayno qaabkan ayuu noqonayaa. marka clear garaysid oo ka nadiifisid waa isaga soo noqonaysaa. isla sidii oo kale ayaa waxa ku samaynaysaa mobilkaaga restart ayaa ku samaynaysaa. markuu soo kaco ayaa waxaad eegaysaa Play Store-kii ayaa soo furinaysaa in cilada ka baxday ayaa eegaysaa. marka ciladu 100% waa hab la hubo oo lagu xaliyo cilada noocaas ah. marka waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iiday casharkan. intaynu isugu soo noqon doono casharkan iyo cashar kale oo xiiso leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.